aqoon-yahanada siyaasiyiinta kulli dhammaan meesha waxaa la isugu yimid falalka Puntland ka jira oo waliba ay ugu dambeysay shalaytii ka dhacday magaalada Boosaaso guddigii wadnaha u ah Boosaaso hawsha ka waday oo lacagta iyagu waxana ay yoohiyeen oo wax ku dadka ay ka ururiyeen waxana federaalku ay ugu deeqday arrintaas oo taas ugu dambeysay laakiin dhibaatooyinku ay soo Puntland ka jiraan waliba gobolka bari ka jiraan ay ka sii badan yihiin ilaa 98 markii Puntland la aasaasay ay bilowdeen laakiin maalin ka dambeysay ay ka soo kordhayeen wax quraan cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa iyo sinaan la'aanta maamulka xitaa laftarkiisa aan loo sinayn ay waxa quraan waliba gobolka bari ku dulmanaa waxa hadda dambeysay maalinta ka dambaysa waxay soo kordhay waxay soo gaartay in la yiraahdo waxqabadkii iyo horumarintii deegaanka iyo haddii ilaahay ku royahay lama socodsiin karo oo wax quraan wax laga qaban karo wadadii wadnaa u ahayd Boosaaso waxa quraan la joojiyo oo qarashkii iyo dhaqaalihii loo soo diray loo ururiyay yaan wax laga qaban haddii marka la leeyahay walahi waxa quraan inna wadadiisa lama joojin karo oo waxa quraan wadadeenii magaalada kama u ahayd oo ka dagaalano oo ficil ka muujino waa waxa meesha ugu neey maamulkuna ma ahayn maamulka waxa loo asaastay ee musligeysano maamulka waxa loo asaasanay inuu masaalixda Puntland iyo danaheena gaarka oo bad iyo bari ku saabsan in wax amnigeena sugo badahana ilaaliyo badigana ilaasho waxa qora inta waa ku qoraysan wuxuu awood u leeyahay maamulkan inuu wax cashuurta kaliya ururiyo laakiin wixii ay u idmanay oo meesha ay maamulka ay ku heshiinay oo beelaha awood qaybsi oo wax lagu qaybsaday waa la baalmaray dawladda waxaan markaa Puntland leeyahay Puntland ay barnaamijka noocaas midna isku ogeyn ma midaan anagu nabad ka qaadanayno oo aan ka yeelaynana ma aha intaas oo ummadu meesha isugu timi gobolka bari iyo Sanaag isugu jirta ma yeelayno wada taagnaay qodobka xiga wuxuu yahay dawladda federaalka waa dawladda Soomaaliya dawladda aan aqoonsanahay waa iyada madaxweyne farmaajo iyo khayre waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddii marka iyagu waxa quraan maamulka marka nidaamkii anagu aan ugu talagalay iyo uu ku guul daraystay haddii iyagu dadkii shacabka si toos si khaas ay ula xiriireen oo dhaqaale u soo diray oo wadankooda hore marinayaan in la soo taago isla qaadan وين قادنا كرنا إنه كواحد قرآن دولة الصومالية ينقل ليلو قرآن لينقل جويو بين قرن الصومالية دي دولة حقول صوت تايك لا عندي صوت تايك سووا إنه لا قرآن توشير الصومال الصومالية عندك سووا عقبتك الصومالية عندك سووا هرمرك الصومالية يأمنك يهدي لك سكرات المدة الصومالية waxaan u sheegaynaa cod gaban u sheegaynaa inaana qudbul qaadan doon maamulka Puntland waxaan u sheegaynaa inaana sidaas maamul ku wada ahaan doonin kuna wada shaqayn doonin gobolka waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah horta xushmad loo sharaf leh oo daashii loo soo daayo waa dir talabada labaad oo aan qaadan doonaa waxaan marnaa odayaashii iyo dhaqankii iyo dhalinyarada siyaasiyiintii way wada joogaaneen go'aankooda iyo taladooda dameerto bay leeyihiin waxaan anagu idin sheegaynaa Soomaaliya ha noolaato wixii khaldan oo caqabad Soomaaliya ku ah oo Puntland ku ah gobolka bari caqabad ku ah waana waa iska qabanayna iyana waxa quraan awood saameyn weyn ugu yeelan doonaan dawladda federaalka bal anagu naqaan khayr iyo wanaag baan idin rajaynayaa waxa quraan maanta talaabada aynu qaadaynaa waa inaynu ka diidino kana dagaalano been meesha u taagno inayna u dulqaadan been u taagna inaynu ficilka aynu maanta bilowna meesha isugu niman inuu hore u socdo been صدّرت كوي لا تسرب علينا رجالية كوي لا تسرب علينا رجالية ولي بقبل كبري للرجالية أمنيسي بالنا درر دي كدي بالنا قتل ولو ثين أين بقول كبار اللي يبصري وحسوق على مجد بدي بري وحسوق على مجد ما أنتي بورا بالنا قرانية بدي بقول مش لما قرانية ما هو تطلع لك الرابع ما كأنت أصلا لو أن هي وحي حقول يا ضي وحي رائع حتى دولة اللي حقود يا ضي عليا وحلا أركي وحلا مغلبنا ما وحلا أقبل كورونا بوصاص إن شاء الله تعالى وهو مركز ويجاري سوي يجاري دونته دتك الديان كان وحفظ بالسفرين هذا بنت له الكوي لا تنصنوا أروت لو توايا وكوي لا تنجح وغان قابت بالي هذا بنت اللي أنت سنت تبالي هذا وحكي غان قابت محيط هاي هالمركز قابت الكل هاي دلوقتي ذلك ما ملكي ماذا كيهر واخد هذا حتى ما ملكي هو حصل بالمركز جيب غير البرامج ما ممكن لحد البلوغور يسوى تغيير البرامج محيط الصوت لا وجرا كلام دولتنا اللي هي العكت يسود تهلع عليه صوتي ذلك أو ضد دولته هاي المر الحقيقة فرماج يسوق بين الصومال يقولون ما
خير سورة وساره سومالي waxay tahay arinta waxa ku jira magaalooyinka ugu banaantahay gobolka ugu banaantahay laakiin boosaaso lacagta dawladda dhexe ma qaadan karto waxba ku jira dadkan aan 20 sano ba been loo sheegay been NF wax ku filan waa qaban dhibaato iyo digindaabe ka badan intaas bay qabaan dhalinyarada 20 sano oo ku dhalatay dulmiga iyo musuqmaasuqa iyo wadanka ka jira baa maanta dad waaweyn oo la yaaban si wax kan u dhaceen marka anu hadalkii waxaan kusoo gaabinaya waxa jira waxaan idinka yeelay baa jira maxay tahay dawladda hala xiriirana waxa ka qaadanaa mishaariic dhan baan oo qabiya garoonka kubadda liita meel kasta oo liita oo la qeylin haddaan maamulka jira ka qabanayn cid alla cid wax ka qabanayso oo la qeylin maamulada wax caado ka dhigteen shaqadooda kooda ka dhigtaan dawladda dhexe hadda hal maamul ama oo dalkeena jooga keen dhulkeena haystay oo ka hadlaya lama arkin dhibaatada wadamada qaarkood ku hayaan kama hadlaan mar alla dawladda dhexe waxaa samaysay dawladda dhexe farakulna waysa hadday shir oran jireen dawladda dhexe wax nagala maqan haddii dawladda waxay la siisayna waa laga dabaynaya waxa leeyahay dariiqa dambe soo martay hadday meel kale soo marsan lama arkeen halkii waxaan kusoo gaabinaya arrinta waa inay ka noqdaan dadka xirana waa in xorriyadooda loo soo celiyaa aad iyo aad baa umahadsantihiin intaas halka kusoo gaabinaya قبلنا قول اسمه عاقله كالحصته وكويه دما ويد سلام انت مو قال كيف تقام ويد سلام سلام بعد ما هذا كبرنا وحلا يا سعيد دني وحب صدور مي about 6 months ago before let me go to صدور مي دور شغالين واحد كنت انا في البوصوب بنا والنسيب حما وين oo aad iyo aad weyn aan filayo leeyahay kaamileyna ila dekad disto laamiyada boostaaso iyo meesha kale oo mid ah garo wal nisawirta kalxana wal nisawirta karna wal nisawirta waxaan balyeynayna inta la soo dhawo waxaan balyeynayna ama dawladda xageelan ama maamul gobolada kan ama jabka halka dhismo waxaan balyeynayna anaga waxa ku dhacday سعيدانيو مدحوينه كورمايا سعيدانيو waxaan ku leeyahay $150 noo soo tidheetay anana aanu jeebkayaga wax ka ururin aanu kaa malaynayna xisaabtada in noogu darto ma ahayn inaad tiraahdo wax laga qaado ha lagu celiyo ama dawladday ka timi ama ha lagu celiyo wasaaradda maaliyadda horta midaan malaynayna maaha laakiin waa mid kaa timi hal qodob baan kuu sheegayaa oqoyaanka iyo caqlada shuruud la'aan kusoo daa waa shuruud la'aan maa kaa codsanin waa shuruud la'aan horta siida lacagtana waxaa lagu dhisaya boosaaso hadday yuhuudi noo soo dirto waa ku dhisay nalaga gacdigo hadday noo soo dirdaalo qof kasta oo noo soo diro ilaahay aburo waa dhisayna no dalka waa dhisayna garowga dhismaha ka socda waa hambaliyeyna iyo gaalkaxyo qardho walaalo kuwa la isku hortaagtay maxaa bas isu hortaagaysa waxaanu moodayna inay tahay madaxweynihii puntland laakiin ma noqon waxaa noqotay madaxweyne gaara waxaan ku leeyahay biduun shuruud aniga waxaa leeyahay caaqil sahad caaqil cabdisalaam caaqil yuusuf waxa way caaqilada ugu daweyn baa degmada boosaaso waxaan ku leeyahay waxaa samaynaysaa shuruud la'aan kusoo dar dadka xiran oo cuqaysh oqoyaanka maxaa leeyahay nabadoonnada garsoorayaasha soo daa biduun shuruud lacagtana lacag baan rabay inuu noogu daro nig waxday $150 ma hunguri baa kaa galisa noo soo lacagna noogu dar raaligelina bixi raggaa khiyaartan soo daa biduun shuruud anigu farbaahintayda waxaa rabaa waa la yaqaan wala caana baan iska hadlo dadka xumaan laakiin runtaan sheegaa waxaanu kaa malaynaynay ma ahatan waxaanu kaa malaynayna waxqabad waxaanu kaa malaynay horumar waxaanu kaa malaynay wadatashi waxaanu kaa malaynay sidii madaxweyne ahaan jiray iyo dadkiisu ku ahayn laakiin ma noqon hal meel boo beyrtay waa ku celinaynaa annagu dhamay bari siiban puntland siiban degmada boosaaso adeer wax badan baa dul qaadanaynay dul qaadashaduna waa wax cajiiba ha naga dhigin digsigii dabku hadada turay ha naga dhigin waxa naga dhigta dad khiyaano oo kaa xisanayo tulma ku xisaynaya ayaanta xiranna soo daa lacagtana waa fasi kaa baryanayna waa fasi lacag noogu soo taray والسلام يا سلام عليكم وعلى آله
waxaan marka hore salaamayaa intaan maaragtaa raggaan isugu dhiyo meesha oo nooc kasta leh oo u dhashay gobolka bari intaan markaan ka gudbo hadalladii wixii la odhan lahaa waa la yidhi laakiin in nala wada arko oo sawirka aanu ka muuqanno inta yada iyo in kale oo badan oo meesha ka buuxnaba keliya baanu rabnaa hadalka waa soo yaryaraynayna